haba tabaryaraada ee ragaan tabiyo xeel weyne taageeradiina suhura tala alluu dhiibta waxaad tacab khasaartaan markii aad kala tolowdaane dadka saad isugu tiirisaan taxadirkeed yeesha todobada jallaad nuucuskada towbad iyo diinta tubta qumanya toobiga qaldani waa tartamayaane marna yaan tashwiishidin dhexgelintii la rabaay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد maanta oo ah maalin jimcaha 4 bishii 12 2020 waxaanu joognaa deegaanka Irgimo oo ka tirsan deegaanka Meegaagta runtii waxaan u soo baxnay safar indhayn iyo kormeer ah waxaan la soconaa murashaxa xildhibaan Xasan Cabdi Aw Maxamed Jaamac halkan si ballaaran ayaa loogu soo dhaweeyay waxaan ugu soo dhaweeyay guud ahaan dadkii deegaanka waxaan doonayaa inaan hadalka siiyo deegaanka say warbixin kooban noo siiyaan waxaan ugu horeysiinayaa deeq Iid Cabdi marka hore shirku uu salaamay waxa weeye deegaanu waxa inoo yimi ninka la yiraahdo xildhibaan Xasan Cabdi Aw Maxamed Xasan Cabdi wuxuu ahaa ragii mujaahidiinta ahaa ee waddanka u soo halgamay dibdhiskii dambe dalkana ka qayb qaatay marka ma ogoshihiin Xasan Cabdi inaynu cod ka siino marka waxaa laydinka doonayaa markaynu deegaanka nahay inay soo wada diyaar garowdaan kaadharhkeenna saynu u soo qaadan lahayn kii uu ka lubay iyo kii aan qaadanba ee qaangaar ahayn inaynu wada diyaar garowmin waxaan siinayaa cabdi madax ku labaynaya isagana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa salaamaya deegaanka iyo ragga noo yimiba annagu waxaanu nahay marka hore deegaan ballaaran oo la yiraahdo Meegaagta weyn halkan aanu joognaa Irgimo ayaa la yiraahdo waxa weeye dalada ay isugu yimaadaan Meegaagta weyn inta xubnooda ay ka kooban tahay caynka marka ay tahay waxaanu dhammaan isla afgaranay ilaa imika iyo intii warwariyadu nagu socotay inaanu saqiir iyo kabiir intii codayn karta ay u codayso Xasan Cabdi Aw Maxamed waxaan ku soo dhaweynayaa Salaan Cabdilaahi marka hore ayaa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaanu la soconnaa xildhibaankii Xasan Cabdi Aw Maxamed arrintaan u soconnana waxaa u horeysa muhiim laba qodob weeyaan hadal aan kala soc lahayn weeyaan dadka oo ah hal isdiiwaangeliy qodob waa kaa qodobna waxa weeyaan xildhibaanka aan la soconnay Xasan Cabdi Aw Maxamed waxaan leenahay xildhibaanku cod buu idinka doonaya sidaa noo ballan qaadeen wanaagsan ina codka siinaysan ku ballan qaadeen ilaahayna inagu maqlaayo ayuun baa laydinka sugayaa saas uma inay noo ballan ahaanayso ilaahay waxaan siinayaa Cabdirasaaq Aw Maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka horeysa waxaan u mahad celinaynaa deegaankan sida fiican noo soo ajiibay Meegaagta weyn gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Irgimo aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta wanaagsan iyo qaabilaadaas iyo soo baxa iyo cadceeda aan ugu soo baxdeen waxaan wadnaa musharax Xasan Cabdi Aw Maxamed oo ka tirsan deegaankan Meegaaga Hargeysa ha weegine beertiisa geeliisa halkan daaqayo lugta soo jiidan karaysa meel dheer baa ka seegina hadda waa deegaan reer miyi weeyaano waa idin la jaar weey ayaanu idin wadnaa insha Allah tacaala hadii aynu ku guuleysanayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu deegaan ahaan aynu ku dhiirano waayo ninku markuu ku ag joogo ninka fog maaha waad ku dhiiran karaysaa taas baan ayaan ku xigsiinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalku horta inta la idin yiri ku urursan wax kale oo la sii faafaya meesha ma yaalaan xildhibaankii waa nala qaadateen soo maaha aad iyo aad baa u mahadsantiin qodobka labaad ee raaca waxa weeye inaynu isdiiwaan gelino maanta waxa ku dadaashaan oo qof waliba ku dadaala qof kastoo geli karayo kaarka qaadanaya inuu qaato sidaa la idin sheegay qofkii hore u galay meesha ma gelayo ama kaarka ka luma ama waraaqa haysto ama ma garanaysa ama kaarkii haysto ma gelayo sidaasay noo ahaanaysa haddii alla yidhaa بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ديجان كان بلارن iyo raggan soo baxay waan salaamaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxa kale idinka mahad celinaya sida noo soo dhaweyseen baadka ku soo baxdeen noogu timaadeen noo soo ajibteen aad iyo aad baan runtii idinka mahad celinaya kulay raggiiba igu horeeyay hadalkii dhameeyay deegaanka iyo hergo soconayba
كل هلو تشدوا لو تشدنا وضلينا كل رنتي وفاسنا في ليا horta waa ujeedada koobaad ee ah in la isdiiwaangeliyo kaarka la qaato runtii waa kelmadda inuu soconay ah in is abaabilo kow kaarkan wax badan buu ka bedelayaa isbedelka waddanka amba isbedelka waddanka lagu sameynayo ama heer madaxweyne noqoto runtii marka kaarkii dee waxaynu wuxuu aragnay inuu yahay nafteenni ka qayb yahay oo in kaarkii qaadanaa kolley dee waan wixii aan lidi weydiiyey xagga xildhibaanada waa ku dhawaaqdeen oo waa bixiseen laakiin xildhibaan wax lagu taray waxa weeye si kaarka loo qaadan lahaa wax lagu tarayaa oo niman karaysani cidna wax tari maayo ana wax tari maayo isna wax tari maayo cid kale wax tari maayo bismillahi raxmaan raxiim waxaanu joognaa deegaanka karin socdaal oo ka tirsan migaagta weyn waxaanu nahay guddi ka timi wafdi ka timi magaalada hargeysa oo uu hogaaminayo murashax xildhibaan xasan cabdi aw maxamed waxaan u soconay wacyigelin guud maadaamay soo dhowdahay diiwaangelintii inaan dadka ku wacyigelino inay kaarka qaataan diiwaangelinta haddii nabad qab noogu timaadeen annana waanu nabad qabnaa waa mahadsantiin si wanaagsanna waanu idinku mahadnaqaynaa wixii arrin awoodeen waanu idinla qaadan waana idiin ducayn aad buu mahadsan yahay xaaji axmed waxaan doonayaa guddoomiyaha deegaanka ismaaciil cabdi inaan isna siiyo kelmadiisa xasan cabdi maxamed waa soo dhoweynaynaa wafdiga uu wadana waa salaamaynaa annaga oo ah deegaanka ama haddii alabidkeeda xubinta karin socdaal oo ka tirsan degmada Sabawanaag waxaanu leenahay xildhibaan waa ku soo dhoweynaynaa waa kula qaadanay waxaad wado waa haddii alidinkeeda leeyahay si ballaaran aad iyo aadan kugu mahadnaqaynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha deegaanka karin socdaal oo ka tirsan degmada Sabawanaag guddidii wafdiina la socotay inaan siiyo Cabdirasaaq oo Maxamed baan ku soo dhaweynaya dhammaan deegaankan migaagta weyn gaar ahaan xubinta karin socdaal ee ka tirsan degmada Sabawanaag aad iyo aad baan idin salaamaynaa dhammaantiinba waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa kale oo idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee xilligan kuleylka ugu soo diyaar garowdeen wacyigelinta aanu wadno iyo xildhibaanka aanu wadno inaa nala qaabishaan mar labaad baan idinka mahad celinaynaa waxa kaliya idinku bogaadinaynaa waxa weeye dee hadda doorashadii ma dhacayso oo ma lihin codeeya laakiinse waxaan u wadnaa wixii deegaanka iyo dadka iyo dalkaba u muhiimka ah oo ah diiwaangelintii waxaan jecelnahay inaynu ka wada qayb qaadano inagoo wada jirna gacmaha ishaysana iskaashanayna isku duuban inaynu deegaankeennan u samayno diiwaangelinta kana qayb qaadano si aanu qofna u seegin codkiisa waxaan ku soo dhaweynayaa Salmaan Cabdilaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubintan reer kale socdaal ee ka tirsan degmada Sabawanaag sida fiican ee sharafta leh noogu soo shireen wafdiga iyaga soo dhaweeyeen waa ku mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annaguna arrimihii aanu sidnay waanu u bandhignay xildhibaan xasan cabdi aw maxamed oo ah golaha wakiilada u sharaxan waanu keennay si fiican bay noola qaateen inay nagula dadaalaan oo codka siiyaan soo saamaynaan ku heshiin soo saa kumaynaan heshiin sidaas ayaanu isla qaadanay diiwaangelintana in dadaal guntiga dhiisha la iskaga dhigo oon in yar dhulka uga dhicin taana waanu ku heshiin soo taana kumaynaan heshiin aad buu mahadsan yahay oday Salmaan waxaan doonayaa iminkana kelmadda waxaan siinayaa xildhibaanka xasan cabdi bismillahi alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad waxaan idinka mahad celinayaa sidaan fiicanna bacdka u taagantay inugu diyaagaroodeen maanta aynu halkan sugu nimi aad iyo aad baan mar labaad iyo mar koowaad baan idinka mahad celinayaa laba qodob baan kan u taagan hoynooyana kaarkaa diiwaangelinta u qaadan lahayn ee maanta inagu soo wajahan dee kolley gaadiidkii waa la keeni doonaa insha allahu tacala waxaan baan idinka daarmayaa un inay dadka sii diyaarisaan oo wixii bilaa kaarana sii diyaarisaan wixii kaar haysta hore u qaateen kaarku ay hubiyaan oo bal inuu yaaliyeen kale ay kala hubsadaan dabeetana intaasu maalinta kaarka haysta dee way fiican tahay xoolaha sii ilaaliyaan inta kalena ay doonato kaarka doonato aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin mar labaad baan idin mahad celinayaa